warninkii gumoobow ka galgalo ayaa la dhihi jiray. barnaamijkan waxaan idigu soo gudbin doonaa ninkii calooshiisa ku tusay waa kuu daneeyaa la yidhi. caloosha ragga jawhar joogo iyo tala ku socoto ragga beledweyne joogo muuse salaad ugu horeeya. soo dhawaada marka saaxiibayaal, muuqaalka like iyo share iyo wax isugu daro iga gaarsiiyay raggaan u rabo. waxaan rabaa inaan halkan kusoo bandhigo nin la iigu sheegay inuu yahay gacan yaraha ninka la yiraahdo madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa waxa uu facebookiisa ku qoray maalintii Cabdullaahi Salaad duqa magaalada ninka loo soo magacaabay iyo Muuse Salaad ay waxa waaye xilka la wareegeen ayaa wuxuu bogiisa ku soo qoray Muuse Salaad iyo Cabdullaahi Salaadow waxaad u dhaarateen ka dhabeeya oo ha qiyaamina madaxweyne Cali Guudlaaw. haddii aad qiyaantaan waxaad mari doontaan uu yiri wadadii uu maray Cabdullaahi Sufurow la marsiiyay isbuuc la soo dhaafay nuur dheerana la marsiin doono yiri. marka arrintaas adinkoo ka duula waxaad u dhaarateen ka dhabeeya oo magaaladaas wuxuu leeyahay macnaha ku hurgufa dagaal oo nimanka joogo ka tirtira Cali Guudlaaw waxa qiyaamina. mar kaleeto waxa uu soo boosti gareeyay Muuse Salaadow alla qiyaanada ma jecla xogtaada si dhammaystiran ayay inoo soo gaartaa waana kugu ceeb inaad dhahdo aniga kaliya in gudoomiye gobol layga dhigo baan rabay. waan ogahay shacabka reer Hiiraan inaysan jeclayn Hirshabelle odayaashana kula ballantay in maalintii Jowhar aad ku soo gashay aadan ku dhaqaaqaynin. Muuse Salaadow mid ogow ayuu leeyahay haddii ballantii lagula soo ballamay aad ka baxdo aadna ogow ballanta waa lagaaga baxaya sidii Sufurow ayaana xilka laga qaadaya. ujeedada waad fahmi kartaa waa nin calooshiisa ka hadlay oo calooshiisa ku tusay waa gacan yarihiisii waa ninkaas sidaa uu hadlaaya waa sigu shaqay. waxaan arkayay madaxweynihii Hirshabelle bilaabay Cali Cabdullaahi Cosoble oo waxa weeye faalla ka bixinayo oo dhahayo ninkan hadduu xil hayo waa in xilka laga qaada. war xil ka qaad ama ha ka qaadin waayeeladu waxay ku sheekaystaan ilmaha laga maqlaa. maxaad uga mashquuli kan odaga dhanaaba sida oo inuu yahay waxa kuugu daliil maalin hore markii meeshan xabadu ka dhacday wixii ka dambeeyay odayaal reer Hiiraan oo istaagay waanay bilaabeen rag Hiiraan state hogaamiyo iyo Cabdullaahi Sufurow Hirshabelle ka socday waa la kulansiiyay waa la wada hadlay ayadoo sheekada la dhamay rabo ayaa Muuse Salaad la soo tuuray. wax kale inaysan ahayn wax kale inaan loo xil saarin qof kasta uu isku ogaa. Muuse Salaadna midaan leeyahay Muuse Salaadow waa hubaal horta xilka aad soo qaadatay waxaad ku soo qaadatay inay yihiin inaad dagaal aad kula wareegayso gobolka oo aad meesha ka sifaynayso. waxaad ku soo qaadatay xilka lagu soo dhiibay horta waa midaas. laakiin waxaan kugula talina inaad jihadaada bedesho. waxa weeye nin caaqila oo dhalinyaro oo siyaasadda u hor leh oo wax fahmaaha tahay sidan dareemayo ama aan kugu maqlay. waxa weeye marka dadkaas waxay rabaan calooshooda way cadeeyeen adna waad iiga dhowdahay kolba ogid adiguna halkaad ka bixi waa inay ku cadaataa. Hiiraan state lagu yiri soo tirtir waxa weeye ma horto ma shakhsiya oo ma falaaga yar oo in la tirtiro u baahana mise waa rabitaan shacab. waa inaad marka hore ku fikirtaa intaadan waxa weeye wax tirtirid adan ku fikirin. waa inaad tusaale ka qaadataa isku daygii u dambeeyay oo dagaalka lagu soo qaaday Hiiraan state. waxa weeye raggii yaraaya meesha ay ku ogaayeen oo soo qabtay islahaayeen waxay ku noqdeen bad oo maxaa ka dhigay xabada markii la maqlay ilaa qadiyadan waa qadiyad dad difaacdaan nin walba gurigiisa qori kala soo baxay daaqada ka soo riday nimankii meel ay ka baxaan iyo cid ay la dagaalaan iyo meel way waayeen ay wajaha wareeray ka carareen meesha. sababta ma taqaana sababtu waxaan dad dhana difaacanayo fiirsanayo ha ku sirmin kaliya kuwa yare waxa waaye metelayo ay hadda shaqada hayo laakiin shaqada dad ay u haayaan dadkaas ana difaacanayo. sidaas darteeda bahashu xalkeedu ma aha in Muuse Salaad
iyo maxaa la dhahaa cabdi xiishay xalkeeda raadiyaan bahashaan xalkeedu kor waa ma dhow odayaasha dhaqanka iyo ugaaska ugu weyn iyo xasan sheekhay jirtaa bahashaan ee xisaabtaana jirtaa meeshaan soko adiguna ha ku ceeboobin waxna ha ku qalbin teeda kale waxaadan raggaas dhiig ugu shubinba waa inaad dareentaa horta dadkaadu in meesha ku bahdilan yihiin oo xuquuq aysan ku haysanin waa inaad marka hore dareentaa tusaale yar xataa ma aha xilal waaweyn naga maqan iyo waxaas ka soo gudub kuwa ugu yaryaroo xataa lafaha yar oo la feefeento laguma ogolo tusaale yaraan ku siinaa shala maahina doraad wadadan beledweyne iyo janta iyo waxa waaye xiriiriso waxaa yimid dhalinyaro cabiraay oo indhayn u yimid waxaa la dhahay in la dhisaal rabaa World Bank ku imaan World Bank 5 engineer u qaadanayaan meeshaan 5 engineer hal engineer xataa waa laga sii waayay oo xitaa aad raadisay waa laga sii waayay waa kuwa wiil warsingeli ah cabiraay tuuladaada tii laga dhisaayo wax laga sii waayay wada laamiya oo balcadi jawharka dhaxla laga dhisaa adiga engineerka aad mahaminaya maya tii tuuladaada laga dhisayni waxa way hal xabo waa laga sii waayay war waxaani marka wax dabaya dacal dulaysan wax la wada leeyahay meesha miyaliin waa inaad wax fahantaan waa inaad marka ka xeeladaysataa arrinta foosha xun ee ninkaas uu ku soo diray waa inaad ka xeeladaysataa